الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكسو دواتان فيزيكس فصل كأفرات الدكسيغا سارة معدكو وكابي أونلاين كوليج معددو وفيزيكس منهج عصب الصوماليا وفيزيكس كفصل كأفرات الدكسيغا سارة أتكالسو عتان معدك كابي أونلاين كوليج وآلابا أتكبرتين علميغان سنتيفيغا سينسكا iyo xisaabaadka ayuu macadku bixiyaa si online daraasadu way socotaa waxaanu qaadanaynaa arday cusub hore u gaar oo la soo xiriir nambarada macadka Kaabe Online College WhatsApp xilli walba oo heega lagu yahay physics-ka fasalka afraad ee dugsiga sare ee manhajka cusub ee Soomaaliya ay halkan ku bilaabi doonaa insha Allah. jabtarada uu ka kooban yahay buugan cusub ee Soomaaliya waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigay dad muslimiina inuu wax na fahansiiyay wulina aanu nahay dalibul cilmi oo cilmiga wuli aynu baranayno oo aan mar walba aan ziyadsanayno nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu Ilaahay ku dhahay qur rabbi zidni ilma marka ardayahow qofan waxba qaldin waxba ma saxo isku dayga waa muhiim jabtarada inuu ku qaadanayno physics-ka fasalka afraad ee dugsiga sare jabtarka koowaad waa oscillatory motion jabtarka labaad waa wave motion jabtarka saddexaad waa sound wave jabtarka afraad waa reflection of light jabtarka lixaad waa refraction of light jabtarka koowaad oscillatory motion socodka walhadaha ama socodka wiifowga waxa la yiraahdo wave motion socodka hirarka sound wave jabaqa ama jabaq iyo xilli xiriira reflection of light noqodka ilayska refraction of light qanacsanka ilayska marka intuu qaadanayno waxaanu ka fiirinaynaa marka laga hadlayo lightska ilayska waxa loo ilayska waa xaaladiisa uu ku sugnaan karo waxa waaye ilayska inuu noqdo ilays absorb oo ilayska in la qaata marna ilayska wuxuu noqonayaa reflection ilayska in la celiyo marna ilayska wuxuu noqonayaa refraction in la qalloociyo marna in la firdhiyo oo dispersion iska ah saddexdan dambe waxaan ku qaadanaynaa fasalka form 4ka introduction to light waxa la geeyay form 3 markii hore jabtarka afraad wuxuu noo ahaa light properties of light marka manhajka cusub amba buugan cusub ee dawladdu ay leedahay soo saartay runtii waan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan ee loo soo habeeyay marka waa jabtaradii balse la soo habeeyay waxna lagu soo daray dispersion of light waxaan kala qaadanaynaa jabtarka toddobaad electromagnetic induction waa saaqida electromagnetska oo jabtar ku cusub buuga ee alternate current current-ka waxa loo qeybay laba qeybood direct current iyo alternate current midka alternate halkan ku qaadanayna kan kala form 3 ga weeye chapter 9 waa electronics-ka hore ugu jiray modern physics hore ugu jiray chapter 9 11 nuclear physics marka waxaan ugu cusub chapterka toddobaad iyo chapterka 8 baa ku cusub buugan cusub okay chapter koowaad marka oscillatory motion ayaan bilaabayna insha Allah waxaanu qaadanay horta motion maxaa la yiraahdaa marka hore waa inaan qeexnaa waxa la yiraahdo motion illa waxa meesha ku qoran oscillatory motion caadi motion waxa la yiraahdaa is a change in position of an object object inuu booska iska bedelo with respect to either loo fiiriyo surroundings and time time waqtiga iyo waxyaabaha iska ku geedaaman ila buugaaga la soo baxaysa marka buugga marka la soo baxdo waxa tagaysa page-ka saddexaad waxa ku qoran marka objectives-ka waxaanu qaadan doonaa objectives-keena marka waxa kamid ah jabtarkan ku qaadan doono inaan qeexno waxa la yiraahdo definition of the oscillatory motion inaan qeexno oscillatory motion waxa la yiraahdo periodic motion inaan qeexno farqiga u dhaxeeya periodic motion oscillatory motion waxa kala qaadan doonaa period and frequency kali rakaad iyo examples iyaga la xiriir oo ku xalinayno marka waxa rabnaa in gadaal u laabano motion maxaa la maadaama oscillatory motion ku jiro odds motion waxa la yiraahdaa waa position-ka sheegay inuu boos iska bedelo marka oo salaano kale from one place to another place oo qofku meel inuu ka dhaqaaqo barkana uu aado ayaa waxa loo yaqaanaa motion iska marka laga hadlay marka from 1kin waynu ku soo dhiganay motion iyadoo motion iska la qaybinayo marka ay form 4 kan waxaan ku qaadanaynaa oscillatory motion marka oscillatory motion iska marka laga hadlay marka waxa loo qaybiyaa rotatory motion, translatory motion, oscillatory motion. Marka fiirino types of motion with examples. motion waxa kamid ah vibrating
motion oo oscillator motion lamid ah linear motion socodka toosan curvilinear motion oo socodka qalloocsan rotatory motion iyo circular motion marka laga hadlayo marka caadiyan translatorska motionska liraado translator motion ayaa waxaa loo qeybay linear motion circular motion iyo random motion asal marka motionska saddex qeybood translator motion rotatory motion oo motionska baaskilada iyo waxyaabaha la xiriira iyo oscillator motion marka naqoosay inaga marka halkan form 4 ka joogno marka oscillator motion marka waxaa la yiraahdaa waa motionka quseeya shaygan inuu u socdo forward and backward this is marka oscillator motion is defined as waxaa lagu qeexaa the motion socodka from object shayga from forth and back shaygan inuu socdo horay gadaal or to its mean position qofka shaygan waxaa loo fiirinaya marka mean positionkiisa ama rest positionka uu shaygan uu ku qumaya ama uu ku taagaya oscillator motion waxaa la waa motionka shayga uu dhaqaaqayo back and forward horay gadaal isagoo loo fiirinayo with respect to this mean position tusaale markaa fiirino oscillator motion is a motion of oscillating body waa socodka uu sameynayo shay socod ama wareeg ku jira around its rest position ama rest point soo loo fiirinayo tusaale kale weegan this markaa inta fiirino oo bedel markaa walhada waxa la yiraahdo this from A kana waa B kana waa C shaygan eega yaala hadii jag la siiyo wuxuu tagayaa C gari hoy gadaal socona sida fooga oo kale marka halka markuu istaagay waa rest position inta halkan waa bartiisa rest position ka yiraahdo waxa ka dabashan saacad oo kale aad fiirso aad mashaadid inta badan ku xiran cloga wareeg uu sameeyay isla xiriir waa rest position waa oscillator motion where halkaasoo the motion is repeated halkaasoo motionku ku soo laabanayo in equal period of time iyadoo loo fiirinayo amin ama waqti the motion of the oscillator body around its surrounding and its rest point waa wareega uu sameynayo waxa la oscillator motion buug waxa ku qoran marka we come across different kinds waxaan ka soo qaadanay noocyo kala duwan of motion ee socodka in our daily life ila xiriirno nolosha maalinlaha ah waxa ka fiirsa buugaaga we have studied waxaan soo daraasanay some of them qaarkood in our earlier lessons casharadeenii hore marka casharadeenii hore uu ku dhahay buugaaga muqarrarka wuxuu ula jeedaa waxaan ku soo barateen form 1 emailha like sida linear and non-linear motion socodka toosan iyo midkaan toosnaynba however si kastaba ahaatee this motion socodkan are not repetitive maahan kuwa soo laabanaya marka shaygu uu baxay mac salaam soo laabasho ma jirto formanka ku soo qaadanay here halkan we are going to learn waxaan u soconaa inaan barano about periodic motion and oscillatory motion waxaan u soconaa inaan barano periodic motion and oscillatory motion waa qayb hore marka oo buugga ku qoran we come across different kinds of motion waxaan ka soo baxnay noocyo kala duwan oo motionska ah in our daily life noloshana maalinlaha we live and we have studies waxaan soo daraasanay some of them qaarkood oo early lessons casharadeenii hore like sida linear and non-linear motion socodka toosan iyo midkaan toosnaynba markuu ku leeyahay marka in our daily life maxaa ka wadaa shay maalinba nagu soo laabanayo salaano kale shaygan mesh ku soo laabanaya oo shay maalin kasta soo laabanayo waxa ka wada socodka waxa ka soo garaac wadno kale heartbeat-ka halkan we are going waxaan u soconaa to learn inaan barano about periodic and oscillatory motions ayaan baranayna marka aan qaxnay oscillatory motion soman is defined as the motion of the object from forth and back horay gadaal shaygu soconaya yaa waxa loo yaqaan oscillatory motion iyadoo loo fiirinayo its mean position booskiisa kaasna oscillatory motion marka include waxa kamid ah oscillating of simple pendulum lulashada ay sameynayso saacada baada lulashada ay sameynayso saacada ayaa kamid ah oscillatory motion waxa kale kamid ah springy movement dhaqaaqay sameynaysa moolada marka fiiro oscillatory motion shaygan halka marka from A jagal soo siiyo wuxuu imaanaa B C marka taadana gadaal u soo laabana marka B dan wuxuu u tahay mean position marka waa point of observation halkan waa barti laga soo laadiyay darbigan salaana kale waxa ku xiran xarig ku xir xarigan dhagax geli marka dhagaxa ku jira jaksi mar wuxuu tagaa ADC uu tagaa gadaal u soo laabana front back hore gadaal u socona marka this called oscillatory motion example kiisa way marka la yiraahdo springy movement ama mooladan
salaam kale moolada sidana waxa lagu xiray cuf ayaa lagu xiray moolada marka cuf lagu xiray waxa ku dhacay marka in xogaa loosanto ay sararaxdo hadana kon aad horiga forward and back horiga la soo up and down motion ay ku soconaysaa marka kaas marka waxa la oscillator motion example-kiisa qayb ka midaway waxa kale kamid ah vibrating strings dhawaqa ay sameeyaan xargaha ay ku jira musical instrument aadaha la garaacay sida kawanka oo kale marka fiirso waxa ku jira marka xargaha ku jira marka xargahaas marka waxyaabaha dhawaqa sameeyay weeyaan waxa kale kamid ah alternate currents kan oo inta badan hadda marka aan wave-ka aan gaarno aan aad u daraasin doono iyo jabtarka oo ku qoran yahay alternate currents-ka iyagana waxay sameeyaan socodkaas waxa loo yaqaanaa oscillatory motion. Okay, periodic motion maxaa la periodic motion waxa la is a motion waa socodka fan object shayga daadkaasoo regular si joogta repeats ku soo laabanayo to a given position bar xadidan after a fixed time interval waqti go'an kadib. Periodic motion is a motion of an object waa socodka uu sameeyo shay daadkaasoo regular si joogta returns ku soo laabanayo daadkaasoo regular si joogta returns ku soo laabanayo to ismiin maxaa la given position bar go'an am bar xadidan ku soo laabanayo wuxuu ku soo laabanaya bar go'an after a fixed time interval kadib waqti go'an. Okay, examples of periodic motion marka tusaalooyinka loo soo qaadan karo periodic motion maxaa kamid ah waxaa kamid ah motion of the hand of the clock gacanka saacada wareeg uu sameeyo saacada hadda oo sakanka baashan wareega dhagdhagtaysa waxaa la motion of hands saacadan markay sida wareeg u tahay baryar waxaa jid sida u sameeysan midna saacada tilmaamaysa midkaan marka wuxuu sameeyaa sakanka marka jag midka saa wareegana maaragta waxaa la motion of the hand of the clock a motion of the planets socodka ay sameeyaan meerayaasha around the sun qoraxda ilaan qoraxda meerayaasha wareega sameeyaan Soomaan wareega uu sameeyay waa shamsu wal qamaru tajri li mustaqar laha socodkaas isagoo waqti iyo wax dhan isticmaalaya bartiisana ku soo laabanaya yaa waxa loo yaqaanaa balanska marka socodka ay sameeyaan faraga wareega uu sameeyay waxa soo dhan waxa la periodic motion periodic motion waxa kala salaano kala kamid salaano waxa magaysa kala fadhiga baarlamaanka waa bisha 7 waxa soo dhan waxay noqonayaan wareegaas marka waxa la waa periodic motion. Okay, waxa la oscillator motion marka si type of periodic motion marka la fiiriyo oscillator motion iyo periodic motion waxa badan periodic motion ka weyn oscillator motion ka yar marka waxa la marka oscillator motion is a type of periodic motion marka every oscillator motion waa periodic motion kasana ma noqon karo oscillator motion ma noqonayo oscillator motion ma noqonayo. Okay, waxaan qaadanaa marka ciwaanka frequency rakaadka and period iyo kalka of a periodic motion ee socod kaleedka frequency rakaadka and period of periodic motion ee socod kaleedka marka maxaa la frequency maxaa la period halka waxaan ku qaadanaynaa frequency maxaa lagu qeexaa maxaa lagu helaa period maxaa lagu qeexaa maxaa lagu helaa. Okay, frequency marka frequency is the number of cycle waa tirada wareega made in 1 second tirada wareega la sameeyay hal second gudahooda ayaa waxa loo yaqaanaa frequency. As a unit of frequency marka waxa lagu qabeegaa hertz oo loo soo gaabay hertz ninkii soo saaray lagu magacaabay. Frequency is the number of cycle waa tirada wareega la sameeyay in 1 second tusaale arday kamid ah fardada fasalka form 4 ka waxa sameeysaa wareeg waana qana marka ilmaha ay inta badan la sameeyay jirtaan arday wareegu sameeyay marka qafar xuloo tirnaa secondada 60 second 40 second 60 marka saduu 1 minute noqonaysa Soomaan minute ta second loo bedeli karaa marka waxa sameeyaan arday wuxuu noo xisaabinayaa wareega ardaygan uu sameeyo ardayna wuxuu noo tirinayaa second ka noo qabanay marka barakaadka marka arday uu ku wareeganay waxa la number of cycles tirada wareega ardaygan uu sameeyay loo qeybiyay emanti ku sameeyay marka frequency waxa lagu helaa number of oscillation tiradii wareega divided by time taken waqtiga ay ku qaadatay. Frequency is the waxa lagu helaa number of oscillation tiradii wareega waxa u qeybinaynaa number of time taken ka u qeybinaynaa marka. Okay, period maxaa la is a time taken oo waqti uu ku qaadanayo to make one complete cycle hal wareeg oo dhameystiran waqtiga uu ku qaadanayo ayaa waxa la period. I mean as a unit of period waxa lagu halbeegaa second oo loo soo gaabiyo as a unit of period waxa loo soo gaabiyaa second ayaa loo soo gaabiyaa periodska period waxa la
time taken period is the time taken oo waqti ugu qaadanayo in la sameeyo hal wareeg oo dhameystiran salaam kale sheeg halkan buu ka dhaqaaqay halkan markuu imaado waqti ku qaato xarada time waa unit of time waa period waxa loo soo gaabay t waa bracket wax ku jiro waa t capital soomaan okay maxaa lagu helaa marka period waxa lagu helaa time taken over number of oscillation time taken oo loo qeybiyo number of oscillation marka waxa leena frequency waxa lagu helaa 1 over time waxa lagu helaa 1 over frequency marka meesha waxa naga cadaan marka frequency lagu dhuftay time waxa la mid tahay 1 marka waa sameyn kara marka hadan salaano kale waxa rabaa frequency over frequency ya dirs la time meel waxa uu qeybinaysa time si loo keen marka inta time uu qeybi time kan time ku soo baxay maxaa soo haray frequency maxaa lagu helaa 1 over time okay 1 over time soomaan waxa la frequency lagu dhuftay time waxa la mid tahay 1 muhu hadana waxa hayraadinayna time ya dirs la frequency meel waxa loo qeybinayaa frequency labada frequency la bixi time waxa lagu helayaa 1 over f am 1 over frequency isagana waa kana marka maxaa farq u dhaxeeya ardayay qaacidadan oo hadda inoo qoran waxa la isticmaalayaa frequency marka la diro time la isiyo qaacidadan time-ka waxaan ku helayaa periodska marka period la diro frequency aan haysto ayaan isticmaalayaa qaacidadan periodka waxaan isticmaalayaa time taken iyo number of oscillation markaan haysto ayaan isticmaalayaa tii xaqana noogu qoran iyadana waa la mid frequency waxa lagu helaa 1 over time waxa isticmaalayaa qaacidadan marka aan haysano time tusaale waxaan ku dhahay ii sheeg waa maxay frequency-ga rakaadka lagu sameyn karo muddo 2 second time haysana mayno 1 over 2 leena markaas ana second time bas aan haystaa marka qaacidadan isticmaalaya laakiin hadda la siiyo number of oscillation iyo time taken formula aan isticmaalaya intaas la jeedo arday waxba waan qaacidadan example 1 fiiri the suspension mass culays la soo laadlaadshay markii wuxuu sameeyay 60 complete oscillation 60 wareeg oo dhameystiran in 15 second muddo 15 second the suspension mass culays yaalo wala soo laadii culays marka la soo laadii marka wuxuu sameeyay kor hoos soconaa dhan marka waa soo oscillator motionska 60 wareeg ayuu sameeyay muddo 15 second ku sameeyay marka la xisaabiyana was the period and frequency of the motion waa maxay periods aminta ama waqtiga iyo rakaad ka socodka okay sale waxa leenahay marka given maxaan haysanaa number of oscillation oo lamid ah 60 complete oscillation waxaan haysanaa time taken oo soo gaabsanayno tt ayadana waxaan haysanaa 15 second waxaan laga rabaa marka time and period law waxaan laga rabaa frequency okay waxaan ku hormarnaa period marka period maxaa lagu helaa waxa lagu helaa time taken over number of oscillation time taken kameen qawaa waa 15 second divided by number of oscillation kameen qawaa 60 markaan isku qeyb maxaa isoo baxay 15 markaan u qeybino waa 0.2.5 second oo ah time and period marka period waxa lagu helaa time taken divided by number of oscillation time taken ka meeqaanaysanaa 15 number of oscillation ka meeqaanaysanaa 60 15 baan 60 u qeybinayna labada markaan isku qeybino waxaan soo baa 0.25 halbeeg waxa raacinayna second okay waxaan laga rabaa marka frequency maxaa lagu helaa number of oscillation divided by time taken number of oscillation ku imisa waa 60 divided by time taken ka meeqa waay 15 second waxay la mid tahay marka 60 waxa u qaybsaa 15 waa 4 hertz frequency waxa lagu halbeegaa hertz soomaan waxa noo soo baxay 4 hertz si kala dilo dhig marka inta waa 1 marka inta u qaybino inta 1 soo haray marka waxa la radaa 1 over second hal loo qeybi second ayaa wuxuu la mid yahay hertz example-keena labaad wuxuu leeyahay if you heart rate hadii garaaca wadnahaaga uu yahay 150 beat per minute daqiiqadiiba 150 garaacmo
during inta lagu strenuous exercise xad dhaafa. What is the time per beat in unit of second? waa maxay waqtiga bargaraaca uu ku samayn karo muddo second gudahooda. If you heart beat haddii garaaca wadnahaaga if you heart beat haddii garaaca wadnahaaga haddii garaaca wadnahaaga heartbeatka heerka wadnaha garaacaga u yahay 150 garaacmo muddo per minute halkii daqiiqaba inta aad lagu guda jiro exercise xad dhaafa muxuu noqonayaa waqtiga garaaca wadnahaaga muddo second gudahood. Number of beats waxaan haysanaa 150. Time taking 1 minute second loo bedelaya marka. Time must be in second. marka maxaa laga rabaa period maxaa lagu leeyahay time taken over loo qeybi number of oscillation. time taking waa 60 second waxaan u qeybinaynaa 150 markaan u qeybina 150 waa 0.4 second. si kale 0 iyo 0 sala bixi 6 waxaad u qeybisaa 15 labada wayba waynu isticmaali karnaa. labadii example ee buugga ku jirtay arday halkaas baynu kaga baxnay aynu qaadano practice-ka buugga. su'aasha koowaad differentiate between oscillatory motion and periodic motion. su'aasha labaad give more examples of oscillatory and periodic motion. tusaalooyin badan ka bixi. su'aasha saddexaad what's the period of 60 hertz electric power? muxuu noqonayaa waqtigii ama timeka. frequency-ga soo hel. Tannen Fox sameeyey 2.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -3 second to complete one oscillation si u sameeyo hal wareeg oo dhameystiran. Okay, Fatima Fapet harmonic oscillator gabadha la yiraahdo Faduma waxay dhaqaajisay oo dhawaajisay garaacada harmonic oscillator wuxuuna sameeyay 40 complete cycle 40 wareeg oo dhameystiran muddo 10 second gudahooda. soo hel period iyo frequency. pendulum ayaa la fiiriyay inuu sameeyay 23 full cycle 23 wareeg oo dhameystiran muddo 58 second gudahood muddo 38 second gudahood. soo hel frequency-ga pendulumta. cashirka labaad tiin ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa isma dhaafno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.